بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة كريم عوا قصير ayaan in la wadaagaya oo ku saabsan dadka oo hadallada dadka u kala geeyo ama namibiyaha la yiraahdo ama maxaa la yiraahdaa hadallada kala gudbiyo oo dadka isku diro. hadda ka hor qasa dhacday waagii hore oo waayadii hore oo adoomada la kala iibsan jiray ayaa nin baa wuxuu lahaa nin adoon ah. ninkii adoonka ahaa nin wuxuu ahaa dadka isku dira dad hadallada kala geeya dadka madaxa isu geliyo. marka dambe ninkii wuxuu sameeyay adoonka lahaa wuxuu yiri ninka wuxuu go'aansaday ninkan inuu iska iibiyo oo dhibkiisa iyo hadalkiisa iyo isku diraalkiisa oo cid dhaafiyo. marka waagaana nin walba adoomada waagi la iibsan jiray nin walba ninka uu ka xoog badan yahay adoonka xoog badan leh oo murqaha leh kan kale uu khaalsana wuxuu sameeyay marka ninkii adoonkiisa uu waday seeladuu geeyay wuxuu yiri ninkan ama suuqa saa u taqaanaanba ninkan wuxuu yiri waa iga iib waan iibinaya. ninkii wuxuu yiri nin baa u yimid wuxuu yiri ninkan ma ka iibinaysaa buu yiri. marka adil lacag raqiis buu u sheegay oo ninkii uusan u qalmin. marka wuxuu ku yiri hadii ninka waa nin hadii xoog laho muruqyo laho maxaa la yiraahdaa dadka khaaliga ku la gadi jiray wayaan maxaa raqiis u gadaysaa beeciisa ma ahu yiri beeca dadka kala waaya laakiin ninkan beeciisa khaali waa yiri adil laakiin raqiisad gadi maxaa sabab. ninkii kamuusan qarin cilada buu u sheegay wuxuu ku yiri ninkan iyo dadka buu isku dira waa nin dadka warka u kala qaado sida awgeed baan u gadaya. ninka wuxuu yiri warta maxaa ka macna ah iga gad buu yiri aniga waayo yiri aan ka gadaya laakiin ninkan sida way ugu dhiman waxa soo yiri waxa dhiman iga gad oo ka gaday. ninka marka asaga ninkan wax gadanaya hadalkan la kala geynay wax weyn buu ma arka ninkan xoogiisa iyo wax qabadkiisa ayuu ku xisaabtamaya. marka uu ka gaday xaafadii geystay hadee shaqadiisii walba lagu yaqaanay meesha buu ka bilaabay adoonka ahaa dad soo dirkay ninkii buu u tagay marka hore wuxuu ku yiri ninkaaga naag kala guursanaya oo guursan raba uu ku nacay. naagtii waa maseertay marka arintii u sheegay marka wuxuu ku yiri hadalkayga been haddaad u malaynaysid waxaad tiraahdaa buu waad ogaan doontaa buu yiri haddaad been hadalka u malaynaaday waa dhiirigelin buu siiyey si hadal ku rumayso. waxay tiri maxaan sameeyaa marka wuxuu yiri waxaad samaynaysid ninka markuu seexdo garkiisa meeshan garka la yiraahdo qaybta wili qurqur ka xigta timaha ku yaalo garka hoostiisa iyo qurqurka inta u dhaxaysa timaha ku yaal wuxuu yiri markuu jiifto adi shay qaado ama sakiin ama wax la mid ama maqas ka soo gooyo timaha soo ku saxraya si adigu ku dhaafin. naagta intiiba ninkii intuu meesha xaafadda ka yimaado kurda bay sugaysay uu baxay ninkii buu u tagay wuxuu yiri nin naagtaada way ku dil rabtaa oo maxaa waaye naagtan marka saxtood arka doonaydo toori kula agtaagan waad arki doontaa inay ku dishay diyaar u tahay toori bay qaadatay wax bay diyaarsatay haye naftaada ilaasha camal uu ku yiri. marka wuxuu yiri masaas baa been hadda wuxuu yiri guri gal seexadi ana hurdin iska ilaali wax hurday iska dhigo arki doontaa iyadoo mindi kula dul taagan inay ku dishay rabtaa. ninkii hadalkii uu rumaystay guriga buu galay uu seexday caalgidsan uu seexday wuxuu arkay iyadoo tooridii la dul taagan oo meeshii rabtay inay tinta ka goyso si ay ninka ugu geyso wax ugu sameeyo oo ninka naag kale u gursan. markuu arkay asagana toorinba agtaalay toorida uu geliyay wuxuu yiri intay ku dilin adii dil. ninka naagta sidii buu ku dil. markuu ninka naagta dilay wuu orday kii adoonkii oo dadka isku diray dhibkan ka dambeeyay wuxuu u tagay gabarta reerkooda wuxuu ku yiri war gabartiini reeryow ninkii baa dilay toori baa lagu dhuftay dhulkay taala way dhimatay.
reerkii way soo yaaceen waxay u imaadeen ninkii iyo xaafaddii bay imaadeen isagana markii uu ogaaday in reerkii xaafaddii soo galeen wuu baxay ninka reerkiisu u tagay wuxuu ku yidhi reerkii gabarta ay ka dhalatay ninkii wiilkiina way dilayaan kaali ka soo gaara way soo ordeen haddana reerkii waa guriga tuuran bay ciddaana ku imaadeen ba waxay dhaheen yacni inay nin wiilkoodii la dilaya u maleeyeen labadii qabiil meesha isugu dhaceen labadii cid oo kala dhanna wiilka reerkiisa ahaa dhanna gabarta reerkooda ahaa dadkii way dagaaleen dad badan baa la iska laayay marka arrintaa waxaan u soo qaatay caawa meesha waxaa ku jira cibar laga qaadanayo cibarka laga qaadanayo wuxuu yahay yacni horta dadka warka kala geeyo horta inuusan faa'iido lahayn oo dad aad u dhib badan ay yihiin marka koowaad ninkan uu u sheegay kamuu qarinin waana qofka islaamka sidii laga rabo badeecad markaad iibinaysid waa inaad runta ka sheegtaa cilladda ay leedahay cilladan bay leedahay la yidhaahdo marka ninkan cilladdii buu u sheegay wuxuu ku yidhi war ninkan warkuu kala qaadaayo dadkuu isku dira ninkan uma malaynin waa si hadda dad badan oo annaga naga mid ay yihiine uma malaynin wararka la kala qaadayo inay wax weyn yihiinba wax weynba ma uu yidhi waxaa ninkan wuxuu galayaaba ka badan warkan ad sheegay wax weyn wax hadda qof loo iibiyo ama loo xaraasho ama qiimo uusan lahayn loogu iibiyo maba dhamo marka asana dhib uma u qaadaninoo warkan buu la sakharnaa waa saa hadda annaga annahay marka ninkii warka kala geynayay oo ninkii sahalladay soo gatay meeshii uu gaarsi heer ninka la dilo islaantii la dilo reerka is dilaanba labada dhinacba oo dhib weyn uu dhaco ayuu gaarsiiyey marka waxaan in leeyahay hal iska ilaaliyo wararka la kala qaadayo kolley hadda xitaa run ay yihiin inteeda badan dadka la iskuma diro dad isku diritaanka waa shay aad u dhib